السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا تلمون برودكشن سو دوادا waxaan idin wada qiso aad idin anfici doonto. waxaan rajeynayaa inaad like saartaan qisadan isla markaana haddii aad ku cusub tahay channelka aad subscribe saari doonto si aad uga faa'iideysato qisooyinka macmacaan ee channelkan soo geliyo. qisadan waxay ku saabsan tahay nin saddex neef geel ah siistay saddex kalmadood meel cidlo ah ayaa waxa isaga hor yimid laba nin mid kamida waxa uu watay saddex neef oo geel ah markaas ku yiri saddexdan neef inaad iga iibsato ayaan doonayaa oo aad saddex kalmadood oo ku anfici doona iga siisato ninkii geela watay waxa uu yiri waayahay ii sheeg saddexda kalmadood waxa uu ku yiri halkeed ku sugan tahay haddii lagu dhaho waxa dhahda ilaahay meeshu igu talagalay mana jirto meel kaaga fiican meeshu ilaahay ku waafajiyo weliga qof ku aaminay ha khiyaamin weliga meel khayr lagu hayana ha dhaafin ninkii geela watay geeli waa uu bixiyay sidaas ayaana lagu kala qaatay geeli iyo kalmadihii ninkii kalmadaha la soo baray waxa uu soo galay magaalada hal ceel ayaa ku yaala ceelkaasna mas weyn badan ayaa salka fadhiyo dadka magaaladaasna biyo ma shubtaan ilaa qof ceelka lagu rido oo uu maskaas cuno kadib qofka marka uu maska la siiyo ay biyo shubtaan ninkan socotada ahaa markay arkeen aad bay u farxeen waxa ay yiraahdeen ninkan maanta biyaha ku cabi lahayn waa uu iskeenay way qabteen ceelka ayay ku tuureen durbaba waxa isqaabilay maski iyo ninkii su'aal ayaa la weydiiyay wariya halkeed ku sugan tahay baa la yiri markaasuu ku yiri meeshu ilaahay u waafajiyay dhulkana waxa ugu khayr badan meeshu ilaahay ku waafajiyo maski waa uu baswaxayba dadkii biyii way dhaansadeen wadaantii u dambeysay ayuu ninkii soo fuulay culayska ayay ka shakiyeen maski ayay moodeen farxad kadib waxa meesha ka soo baxay ninkii waa ay yaabeen magaaladaas waa uu ka tagay magaalo kale ayaa uu tagay oo boqorka taliyo boqorka gurigiisa ayuu ku degay halkaas ayuuna ku noolaa maalin ayaa boqorkii waxa uu ku yiri safar ayaan galay ee cariga adeeg ayaan kaaga tagay amaano ayaan kugu tahay dhammaan wixii meeshan yaalo dhanba cariga markii uu baxay ayaa waxa damacday inay ka macsiyeysato islaantii boqorka ninkii looga tagay waan uu ka diiday inuu ka macsiyeysto nin ilaahay dhooray buu ahaa waxay ku dhahday boqorka marka uu yimaado kugu diri doonaa waxa uu ugu jawaabay waxa doonto samee boqorkii waa uu yimid islaantii way isku tuurtay waxa ay bilowday wadaadkii inay dulmiso waa uu aamusay beer uu lahaa ayuu u tagay nimankii shaqaalaha ka ahay waxa uuna ku yiri dab weyn shida bari qofka ugu horeeya ee idiin soo galo ku rida xitaa aniga haddii aan imaado qorshaha waa la wada ogaa miskiinka mooyaane kadib ayaa lagu yiri qoladii beerta ayaa lagu dhiibayaa wax ay cunaan ay qaad waa uu qaaday markuu dhexda marayo ayuu maqlay subax qur'aan meel lagu hayo waa uu ku leexday ileen balantii ayaa ahayd inuusan dhaafin meel khayr ka jiro muddo mar ay ka soo wareegtay ay islaantii isdhahday kii waqtigan wuu shiilmay ee soo fiiri markii ay meesha tagtayna waa la qabtay dabkii ayaa lagu tuuray halkaas ay ku dhamaatay qisadii aan idiin soo tabinay haddii aad qisadan ka heshay waxaan kaa doonaynaa si codsi ah inaad like gareyso qisadan isla markaana aad share gareysaan haddii aad ku cusubtay channelka waxa laga doonayaa inaad subscribe saarto aada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.